iyadoo uu maansheeyay roobka degmada Garadag iyo deegaanada hoos yimaada haddana waxaa jira meelo weli abaara deegaanka Fadhigaab waxa uu ka mid yahay deegaanada hoos yimaada degmada Garadag waxa ku soo barakacay in ka badan 600 oo qoys waxa uuna kaga duwan yahay deegaanada kale weli waa abaar ma haystaan dadka ku sugan kaamka barakacayaasha biyo iyo baad ay quutaan waxaana taa u dheer xanuuna soo food saaray oo ay ka mid yihiin shuban biyoodka jadeecada durayga iyo nafaqa darrada kuwaas oo aan lahayn goob caafimaad oo lagu dabiibo dadka waxayna sheegeen inay u naf waayeen in ka badan 10 ruux haddaba Marwahon Cable TV wax ka weydiiyay haydhka iyo odayaasha tuulada ayaa waxay sheegeen inay ku jiraan dadka kaamka barakacayaasha xaalad adag waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland hay'adaha dawliga iyo kuwa madaxa bannaan inay si degdeg ah u soo caawiyaan kaamkii weynaa ee barakacayaasha dadkii xooluhu ka baxeen weeyaan joognaa magacaygu waxa weeye Maxamed Cabdullaahi Xirsi anigoo ku hadlaya codka reer Fadhigaab dadka waayeelkaana ka mid ah halka kan waxaanu gaarsiinaynaa ummadda oo ku baaqaynaa oo ummadda Soomaaliland aanu gaarsiinaynaa horta marka ugu horeysa kaamka kan dhibaatada ugu weyn ka jirta inay tahay ee la og yahay caafimaad darradaas oo ah aan wax dhaqaatiir haysan taasoo ay ka mid tahay shuban xad-dhaaf ah iyo kaneeco iyo baasha la yiraahdo jadeeco intaasoo dhan baa isugu weerisa dadna waa ku idlaada waa ku dhintay dadna waa liitaa waa sakaraad oo dad badan baa jiifa dadkii isu yimid qaxootiga ama magaalada gudaheeda baa qaatay barakacayaasha marka waxaanu codsanaynaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda cidii ay khusayso oo dhan hay'adaha caafimaadka qaabilsan haddii la yiraahdo iyagana aanu ogeysiinaynaa dadkaas in degdeg wax loola soo gaadho ayaanu codsanaynaa ceel baa ku dhaweyd ceelkina wuxuu noqday ceel dhanaan oo aad iyo aad u adag yihiin markii dabadeed biyaha loo shubi jiray dadka biyaha lagu shubtay heer loo shubi jirtay biyahan biyihii looma shubin markii biyihii ay adkaa dadka cabeen biyihii isbedelay adkaaday markii cabeen dadku shuban iyo waxba keenay xanuun hargab baa yimi jadeecad timi adalaba ku ruun waxa yimi waxa timi adalaba ku ruun yahay shubankii jadeeco hargab wax badan baa yimi dabadeed markaa waxa weeye dadka aad iyo aad u taabsan yahay meesha caafimaad darrada taala waxayna dhankooda ka hadlay qaar ka mid ah dadka soo barakacay booska qaxoontiga dadka soo barakacay dhibaatada iyo aafadu ku dhintay waxaan ay joogood dadka waxaan u sheegaynaa Soomaaliland haddii mid kasta oo xilaya yahay ilaa Maxamed Axmed Silaani ilaa kuwa ka hooseeya jaahiliyadda dabalaadka iyo wixii islaamay ilaahay yaqaan waxaan u sheegaynaa gurmad xalana soo saara 637 ayuu ka hortaagnaa kuwa kale ee soo quban ama meelaha soo jooga ama awoodda loo waayay shidaalkii iyo har iyo muskulada iyo koonaya shidaalka iyo qarashka aanu weynay mid kastaba in turaabkaasi ka badayay raxmadiina waa naga yaree ogaatay meelahaas lagu sheegaan waxbaneen baahidayada markaan idin sheegno cabashadayada aan anagu idin soo gudbino waxana lama koobi karo baahidayada lama koobi karo ummadda Soomaaliyeed halkaas caafimaad darro macluumaadka oo ka go'an biyo la'aan iyo haraad dawo la'aan أسبوعاً واحد يا كوب يا طبعاً شايف أنا عارف كيف أحتاج أمر المكان وحن يعني كاتب كبير لطو جناعه يوشوباً يو هرجع يو كان عايز سهراً يو شن جلاني وحلا واحد باتوي ينون كمان مقنا حول العالي وانا هيسا نفقدره وانا هيسا
dabadeedna waxaan u baahanaa inaan nala gacan qabtaa waxaanu ku afuro iyaanu cabno nafaqo darri waxaba inaanu helaa hayeeyo cadaan ku afurnaa iyo cad oo ma helo ma helo sidoo kale maranu la xidhiidhnay maayirka degmada Garada waxa uu ka dareensan yahay waxa uu shaaciyay inuu og yahay xaaladda qalafsan ee ka taagan deegaankani uuna ka xun yahay Faraxa Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garada.